taliska guud waxaa joogay awal 22 hoggaan sidaas daraaddeed baa waxay nala qubanaatay inaan soo koobno oo ka dhigno muxuu ahaa 13 inaan ka dhigno hoggaan si ay muxuu ahaa u muuqato tayadooda iyo waxqabadkooda waxaan ugu talagalnay hoggaamo kooban oo tayo leh sidoo kale waxaan dhisnay guddiyo saraakiil oo loo xil saaray inay ka shaqeeyaan dib u dhiska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed dhinacyada tababarka howlgelinta iyo guud ahaan maamulka guddiyadaas oo aan ugu talagalnay inay si wadajir ah ula shaqeeyaan saraakiisha hay'adaha saaxiibka dawladaha aan saaxiibka nahay oo si aan dawladaha saaxiibka nahay naga caawiya dib u dhiska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waa ragga halkaa fadhiyo weeye in ay la shaqeeyaan ayaan ugu talagalnay guddiga dib u dhiska xoogga dalka Soomaaliyeed aad baan mahad idinku celinayaa waxaan leeyahay xoogga dalka Soomaaliyeed kii aan shalay qabtay markaan imaanayay maanta qabashadeeda ka fiican wax yar waxaan ugu dalaynaa wax kale maaha shalay markaan qabanayay saraakiisha xoogga dalka Soomaaliyeed 10 nin ka badan kama aqoon marka maanta saraakiisha xoogga dalka Soomaaliyeed waxaan dhihi karaa 60% baan aqaana taas waxay keenaysaa inaan wada jir wax fiican qabano waxaan ku faraxsanahay maanta inaan hortiina imaado anigoo ah wasiirkiinii gaashaandhigga si aan xilka ugu kala wareejiyo 2 taliye iyo sidoo kale 2 abaanduule oo sumcad iyo karaamo ku dhex leh ciidamadeena qalabka sida ugu horeyn waxaana halkaani ugu mahad celinayaa taliyihii hore ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Cabdiweli Jaama Gorod oo aan ognahay muddadii uu xilka hayay shaqadii uu qaranka u qabtay muddadii yareed aan la shaqeeyay General Gorod wuxuu ahaa nin karti badan oo shaqo yaqaan ah wuxuuna si weyn ula shaqeeyay madaxda qaranka iyo wasaaradda gaashaandhigga iyo talisyada ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed